marka anigu markaan joogay halka gudoomiyaha iyo 17 degmood waxay joogeen oo aan aniga saaxiibkay xildhibaan Cabdi Shire ka soo daanay Daynilay joogeen waxa ka horeeyay arbacadii dhaweyd Wardhigley baa la joogay waxa ay muuqata Soomaalidu waxay tiraahdaa waa bariyay sacab laguma dado in ay magaalada Muqdisho maqaamkeedii iyo nabadeedii iyo isdhexgalkeedii iyo horumarkeedii ay la soo noqotay ayaa muuqata waxaana leeyahay gudoomiyaha waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale munaasabadu maanta waxay ku saabsanayd shirkii 17 degmood ayaa waxa lagu qabtay xaafadda Yaaqshiid waxa kale oo lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha ayaga cusub oo walaalkeen Cabdiwali oo leeyahay xilka lagu dhiibay ilaahay ha kugu asturo waxaana hubaa inaad dad fiican xaafadan anigu ku soo koray waxaan hubaa in degmo fiican lagu dhiibo degmo aad iyo aad waliba u weyn xamar degmooyinka ugu weyna walaalayaal waxaan rabaa inaan reer Muqdisho u sheego oo ay maanta iga maqlaan oo gudoomiyaha hortiisa uga faa'iideysto Soomaaliya waxaad la socotiin lama ogola inay cageeda isku taagto lamana rabo inay nabad noqoto iswalaashadaan 1880 18 Soomaaligi baa igooye ayaa waxa yimid saamiyihii reer Yurub ugu horeeyay waxaad la socotiin reer Yurub iyo dadka ajaanibta ah ilaa markaa waxaan ka dhaxalnay haaraha nagu yaala waa shantii Soomaaliya inay kala qaybiyeen calanka buluuga aad aragtiin shanta xidigood oo ku yaala waa astaantii Jabuuti NFD Soomaali galbeed walaalahayaga Suqooyi galbeed iyo koonfur Muqdisho ah waxaan idin sheegayaa dagaalkii maalinta bilowday wali waa socdaa shacabka Soomaaliyeed halka laga taargad gareynayaana waa reer Muqdisho sababtu tahay waxa la yiri mas madaxa laga dilaa haddaad adinku israacdiin oo aad adinku midowdiin waad la socotiin SYL halkaana lagu aasaasay waxaad tihiin hooyadii xornimada tihiin hooyadii midnimada Soomaaliyeed baa tihiin waxaan idin sheegayaa oo aan halkaan uga hambalyeeynayaa maamulka mas'uuliyiinta sarsare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre isbedelkii ay ku bedeleen dinkii wakiilka u ahaa United Nationska Hayson baydhabo inta tagay oo laba nin dhinacyada iska dhigu wuxuu yiri Soomaaliya Muqdisho maaha Muqdishona Soomaaliya maaha miyaan taargad ahayn miyaan adinka leeyahay taargad gareynayn waxaad ogaatiin siyaasiga idin la meeshaanu nabad maaha inuu ganacsigiina ka soo horjeedo waxaad ogaatiin siyaasiga idin leh Muqdisho nabad maaha yiraahdaa macnaheedu inay tahay lama imaan karo waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo maadaama diblomaasiyadda aan kugu jiro ogaada 31 bishii 12 wasaaradda qorsheynta wasiirkayga Jamaal wuxuu ku amray United Nationska inay dhammaan soo galaan Muqdisho 48 saac markay ka hartay ayaa hoobiyayaal lagu soo garaacay Muqdisho hay'adda xalana lagu soo garaacay maalintii ku xigtana waxa la yiri lama imaan karo boqolkii 50 unbaa imaan kara si la rabo in loo uuriyaamiyo oo wadankan cashuurta baxaysa lagu cumno dawladaha dariska oo ay noqoto la yiraahdo Muqdisho nabad ma aha waxa la kuwa siyaasiyiinta marka oo rabo inay kala qaybiyaan oo rabo inay dalka masawir qalad ka bixiyaan oo Ilaahay baan idinku dhaarshay caaway 30 sano ka hor meesha igu dambeysay ayaan caawa taaganahay Tawfiiq oo xaafadda Yaaqshiid war ma nabad baysan ahayn miyaysan nabad ahayn Muqdisho miyaanan idin ugu jeedin haddaba waxa la rabaa inaan kambaniyadu idin imaan waxa la rabaa ganacsiga in la xuriyaamiyo waxa la rabaa markii si walba dawladda wax looga qaban waayay maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxaad la socotiin oo aad ogaatiin waxaad ogtiin markii si walba wax looga qaadi waayay
oo ku fashilmeen amnigii waxa weeye faruhu ka baxay oo ku fashilmeen wax walba ayay waxa weeye maanta waxay maraysaa in waxa weeye siyaasiyiintii intay baxaan fiiri ingiriiska iyo maraykanka iyo European Unionka iyo adduunka caalamka siyaasaddu waxay leedahay wax la yiraahdo common interest markay isqabtaan dawladda iyo dawlad kale mucaarad iyo muxaafadba waa in la midooba markaas siyaasiyiinta failure-ka oo maanta raba ayadoo dhammaan dhaweyn oo aan waxa weeye aysan waxa weeye doorasho soo dhaweyn ku campaign gareynaya waxa weeye dawladii ka soo horjeesteen ma xaq baa walaalayaal ma wax wanaagsan baa reer muqdisho waxaan rabaa inaan idinla hadlo oon idiin sheego qarannimada Soomaaliyeed adinka ka go'da adinka ayaa shalab udub dhaxaad u ahaa adinkaana maanta taargad oo la rabaa Soomaaliya inay ku kala tagto war qarannimadiina adkaysta qaasiyatan reeyaaqshid degmooyinkooda laamankooda iyo waxa weeye degmada yaaqshid waxa la rabaa inaad gacmaha isqabsatiin gudoomiyaha soo dhawaysiin oo aad waxa noqotiin waxa weeye aad ku sifowdiin wa'tasimu bihamdillahi jamii'an wa la tufarriqu wadhkuru ni'matallahi in kuntum a'daa'an fa'alafa bayna qulubikum waxaad noqotiin two hands better than one gacano wada jir bay wax ku goyn karaan gudoomiyihiina sharaftiisa adinka idinku jirtaa markaad midowdiin asaguna wuxuu wax idiin qaban karaa marka aad waxa weeye midaysan tihiin walaalayaal muqdisho ha ka baxdo madmadowga ku jira muqdisho way ka baxdo maanta way dhaqaaqday waa la qaban lahayaa waxa Soomaaliya oo dhan adinka noo matala Soomaaliya oo dhan aniga markaan qurbaha joogay waxa weeye 10 sano 2012 waxaan ku soo galay hees la yiraahdo nin muwaadin aan ahay muddo ka maqnaayo sida iga maqaarey lagu maalay toobtaan muusalaamaya ee muqdisho ay nabadba waxaa tahay magaaladii lagu wada midoobe maandeeq xurnimadii meeshii lagu yagleele muuqaalka quruxde mawla uu ku siiyaan marna ka ilmaamayn maxaan xiisa ku qabay muqdisho ay nabadba magaaladani waa magaalad matali karta Soomaaliya oo dhan sababta loo taargad gareynaya waa iyada waxaan leeyahay oo soo jeedinayaa 17 degmo waxaad hesheen nin bulaydan professional ah waxaad hesheen shakhsi degan oo qabow oo aqoon-yahan ah oo tolerance oo qof walba miiska la fariisanayo la shaqeeya kuna qanaca gudoomiyihiina injineer Yariisow markay taasu timaado waxay imaanaysaa in lala shaqeeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo in lala shaqeeyo waxa weeye Xasan Cali Khayre ka bacdina Soomaalinimadii canshuurtii iyo dhaqaalihii waxa weeye soo baxa marka Soomaaliya dhan uu wada gaaro ballanteedu waxay tahay walaalayaalow inaan gacnaha isqabsano ballanteedu waxay tahay inaan qabiil ka gudubno ballanteedu waxay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam 3 jeer buu ku celiyay war ka fogaada qabyaaladda waa uraysaa qabyaaladda ka fogaada markaan arko gidaar jaban markaan arko meel bacaad ah markaan arko biyo degeen waxaan xasuustaa qabyaalad inay saa noo gashay walaalayaalow ka fogaada gabay aan 10 sano ka hor tiriyay ayaa wuxuu ahaa qaxootiga dhabada taagan iyo dhaawic iyo meydka dhagtaga maqalka diidiya indhaha milixsiga dhaafay qabiil baa dirxumada dhigo doobsho qarankii waa dami gumaysto dhigtiyo dhaawacaan harine dhunkaal cadaabiya ka daran dhuxuro naareede waa dhimirka balan naga gashoon qolana dhaafayne wax kastoo xumaan ugu dhacoon boogadhay weynay dhibka maanta taalaama dhaqan dhowr qarnood tagay adinku marka haddaad dib isku aragtiin maxaa ka jira qurbadhoofku wuxuu nagu dhigaan dhab uga faalloone dhashuba hawda raatee bulshadii dhaaftay dhaqankii qaar baa dhagaha loo duroon dhibana noolayn ninka dhaga gashada kolley waa taqaanid qaar baa dhagaha loo duroon dhibana noolayne dhaliil bay dul saareen ugaas dhowrsanaan jiraye dhamaa lagu dharbaaxaa siduu dhoobada u qodaye dhakhtar dhiigga joojiya miya dhaqaya maaquunta dhuuxoo wanaag lagu ogaatay gurigiiye dhibaatada qurbuhu waa waxaan dhihid ku koobayne abaan dhiigga kiciya fanaan dhihi ogaa haysta dhalinyaro iyo waayeel miya
tuugsi wada dhowri ma ka dhumay dhammaantii afkii dhaqanka fiicnaadhe geel baa karuur laga dhigtaa suusac iyo dhaaye dhaqashiya wuxuu kuu galaa hilib la dhooshaaye hayndhii ninaan biyo u dhigin dheef ka heli waaye ari dhayladiisaa macaanidihii dhogorta weynaaye wuxuu yidhi allow nabadii fiicnaanashii dhigashadii diinta dhulka nabadka yeelo shacbigu dib ugu dhafandhe soomaaliya ha noolaato ha midowdo ha israacdo cadowga soomaaliya cagta hoostiisa ha galo gobolka banaadir horuu u socdaaye insha allahu kii cadowgiisu qaba waayo allaha ka dhigo guddoomiyaha waxaan leenahay cabdiweli qalbi furan waxa weeye gogol xariira qalbi goba walaalnimahan goyn ku soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu